si dhuumashaale ay kusoo yaarada kusoo gashay marka haddana kulli xabad way socotaa iyo goobihii aan degenayn oo dhan bay weerka kusoo qaadeen. waayahay hadda adiga xagee ku sugan tahay? waxaan kusoo ognahay xarunta degmada. dagaal xoogan oo jilbaha la isu aastay ayaa waxa uu ka socdaa degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo. dagaalka ayaa bilaabmay kadib markii degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo ay 3 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaco dowladda federaalka Soomaaliya ay leedahay ay geysay Cabdirashiid Janan oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Jubbaland haddana ah taliyaha nabad sugidda ee gobolka Gedo ay dowladda federaalka Soomaaliya u magacowday. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo ayaa la sheegayaa in ay weerar ku soo qaadeen magaalada Beled Xaawe maadaama markii horeba ay deganaayeen duleedka magaalada xero ka baxsan halkaana Cabdirashiid iyo wafdigii la socday ay ku degeen. inkastoo hadda xabaddu ay socoto haddana waxaa la sheegayaa in ciidamadii soo aaday dhinaca magaalada dib loo celiyey ayna ku sugan yihiin xerada duleedka magaalada ah oo halkii ay wafdigu ka soo degeen ah oo aysan gudaha u soo galin magaalada. ciidamada Jubbaland ayaa waxaa la sheegayaa inay joogaan gudaha magaalada degmada iyo waliba hareeraha magaalada intooda badanna magaalada ay gacanta ay ku hayaan. Cabdirashiid Janan ayaa waxaa loo magacaabay dhowaan taliyaha hay'adda nabad sugidda ee gobolka Gedo waxaana la filayay in wuxuun ay dhici karaan maalmaha soo socda. hase ahaatee hadda waxaa si toos ah xabaddu ay uga socotaa degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo. gudoomiyaha gobolka Gedo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay saldhigyada ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo iyo waliba xafiiska degmada ee Beled Xaawe weerar ay ku soo qaadeen weerarkaasina ay dib ay u celiyeen. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha kala duwan ee kala gaaray labada dhinac. hase ahaatee xilligan hadda kula hadlayo waxaa socda dagaal culus oo u dhaxeeya labada dhinac mana jirto wax faahfaahin oo cadeynaysa khasaaraha labada dhinac. waa soo way jirtaa qoladii halkan aan isku horfadhinay baa xabad soo bilaabeen diyaarad xerada militariga ee helicopter si dhuumashaale ay kusoo yaarada kusoo gashay marka haddana kulli xabad way socotaa iyo goobihii aan degenayn oo dhan bay weerka kusoo qaadeen. waayahay hadda adiga xagee ku sugan tahay? waxaan kusoo ognahay xarunta degmada. waayahay xarunta degmada goobaha la soo weeraray ku jirta iyada way ku jirtaa marka adigu kulli hadda xabad hadda bilaabatay wixii xaasilkeedana waa ogaan doonaa insha Allah taala. aanisoo dadka xabad ay kusoo daaleen dad hadda nafsidiina say noqon kartaa Allah ma marka doorbideen ma lahan waxaan 8 bilood aan hortaagnayn oo aan doonaynay inaysan deegaankan dadkan xabad aysan ka dhicin ba bulshadii iyo ciidamadii walaalaha ahaa lagu qasbay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay iska xalismato marka waa ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay bulshadii intaas aan meesha u fadhnay oo xabadda aan ka ilaalinaynay inay korkooda iyo dhibtooda ay xabad maqasho in maanta si nasiib darro xabad loogu bilaabay. waayo gudoomiye hal iyo laba noo meelaha ay dagaalku si toos uga socdaan maadaama gudoomiyihii gobolka aad tahay. iyo dagaalka ilaa wuxuu ka socdaa 3 goobood xarunta degmada UK xerada la yiraahdo migrationka. dad goobjoogayaal ah oo ku sugan degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo oo aan la hadalay ayaa sheegaya in hadda ay socoto xabad xawli ah oo ka baxsan gudaha magaalada. hase ahaatee xaaladdu ay saacad walba isbedeli karto. wixii warar ah ee ku soo kordha qodobkan waxaad kala socon doontaa Rasmi Radio. fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay barahayaga bulshada oo aadan horey noola joogin ku soo biir channelka subscribe noo saar noo like gare noo share gare si dad badan u gaaro. mahadsanidin.